Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ayaa waxay sheegtay inay gacanta ku hayso baadhitaano lagu sameynayo calafka xoolaha oo loogu deeqay xoolo dhaqatada Somaliland ee saameynta ku yeelatay abaarihii ay Somaliland ka dhacay taasi oo ay ku deeqday hay'ad caalami ah. Agaasimaha Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland Maxamed Geedi Caynaanshe, Gudoomiyaha hay'adda Muuse Xasan Yuusuf oo warbaahinta si wada jir uga hadlay xarunta Hay'adda Dhawrista Tayada ee magaalada Hargeysa iyagoo ay barbar fadhiyeen komishinarada Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ayaa ka hadlay calafkani xoolaha ee saacadii la soo dhaafay lagu hadalhayay baraha bulshada taasi oo la sheegay in ay yihiin kuwa sumaysan oo loogu talagalay in lagu dabargooyo xoolaha dhaqatada Somaliland xoolaha ay haystaan. Maxamed Geedi Caynaanshe, Agaasimaha Dhawrista Tayada Somaliland oo gooreenba halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi calafka xoolaha la qaybinayo hay'adda Save the Children iyo ganacsatada horyaal ay qaybinayaan lagu soo sheegay inuu yahay mid xoolihii ama se xoolaha la siinayo ay ku dhimanayaan oo xaqiiqatan ka war celinaysa ama se ka jawaab celinaysa in la sheegayo in qaranka aanay ilaalada waxyaalaha la cunayo aan laga warhaynin. waxaan bulshooyinka reer Somaliland u sheegaynaa in marka hore ay soo galayeen calafka xooluhu xukuumaddu ay ka warhaysay hay'adda u qaabilsan tayada waxyaalaha dalka soo galayana oo hay'adda dhawrista tayada ah annana aan ka warhaynay oo la soconay talaabo waxaan sheegaynaa in propagandadaasi ama se waxyaalaha qaladka ah ee media la marinayay ay carqalad ku noqonayaan isku shaqadii iyo calafka xoolaha dadka la siinayay waxa haddaan gacanta ku qabanay oo aan joojinay gabi ahaanba in la qaybiyo maadaama shaki fara badan laga muujiyay shakigaas aan dadka uga saarno waxaanu gacanta ku haynay annan u sheegnay inaanu waxaasi dee wax sugan ahaa ayaanu joojinayno hakinay inaan la qaybin aanu socon karin calafka xooluhu. Gudoomiyaha Muuse Xasan Yuusuf, Gudoomiyaha Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in hay'addiisu ay gacanta ku hayso baadhitaan lagu sameynayo calafkaasi xoolaha ee maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu hadalhayay. Muuse Xasan Yuusuf, Gudoomiyaha Hay'adda Dhawrista waxa uu sheegay in hay'addooda had iyo habeenba u taageen inay ka hubiyaan shacbiga tayada alaabaha kala duwan ee ka soo galaya xuduudaha dhulka, cirka iyo badda. annagoo gudanayna shaqadayadii annaga oo sida agaasimaha guud uu sheegay ku jirna hawshaas hubinta tayada calafkaas xoolaha ah ee soo galay dalka oo aanu ilaa imika gacanta aanu ku hayno hubinteediina aanu ku hawlanahay natiijadana aanu haddii ilaahay ka dhigo soo saari doono. waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer Somaliland feejignaanta intaa leeg ee ay qabaan. waan ugu mahad celinaynaa xiriirka ay nala soo sameeyeen ka hay'ad ahaan ee ay muujiyeen cabashadaas ama fiidiyowga la soo geliyay wixii ka soo baxayna waan ugu mahad celinaynaa annaga oo la shaqeynayna laamaha dawladda ee kala duwan haday yihiin ciidamada haday yihiin wasaaradda maaliyadda haday yihiin arintan oo ay hoos timaado wasaaradda xanaanada xoolaha hawshaas gacantan ku haynaa hadii la ka dhigo wixii natiijo ah ka soo baxa baarista iyadana dib baan u dhiganaynaa hadii la ka dhigo. waxaan kaloo doonayaa inaan ka faa'iideysto isna waxa jiray xog ka soo baxday dalka ay mushaarkanahay Muqdisho oo lagu baaray 5 cuntooyinkan la cunayo cunto wadaniga ama cuntada Soomaalida ah taas oo research laga sameeyay oo la yiri waxa ku jira mycotoxins aad u badan. waxaanu bulshada reer Somaliland u sheegaynaa inaan hawshaana gacanta ku hayno saambaladiina aanu suuqa ka qaadnay suuqyada Somaliland iyagana aanu soo baarayno insha Allah oo lab ku soo baarayno natiijadoodana aanu la wadaagayno hadiiba sida uu cilmi baadhisna ay sheegayaan ay mycotoxins ku ay levelkii loogu talagalay level ka badan uu yahay waxaanu sameeynaa waxa la yiraahdo market recall ama inaanu dib u soo celino cuntadaas suuqa yeela. marka aad iyo aad baad mahadsantihiin annagu maalin har iyo habeenba waxaan u shaqeynaa oo xuduudaha dalka u ilaalinaa in aanay soo gelin wax yeelaya bulshada Somaliland iyo ganacsigooda iyo xoolahooda. Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsha TV, Hargeysa.